koortii markay saas tahay kor waxaa ka xiga horta waa xirsi ama waa qardhaas yaa xirsi ama qardhaas maxay tartaa waxay tartaa gaal jecel baa la yiraahdo nin saaxiibka waan jecelahay gacal weeye hidaha iyo dhaqanka ilaaliya wala aad baan ahay dhamaanteen ku salaamayna ninka moogtay u sheegaysa masaabaadtii Soomaa aad iyo aad waan jecelahay wala gacal weeye ma sha Allah xalaal qudato dartii baan halka u soo maray inaanu barnaamij qurux badan idin soo tabino hashan inta waxa dhashay saakay dhashay waa awr beeleeyay nimanka lisaya hasha gacanta ku haya moogtay darnaasaha ee duugaya geela markuu dareeran yahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جديد داود يا المكس تشوكتان نبت قليل بين حريسيس ومدة جار كي تجود أنتم بجود هنا هذين هل كان نقدر وانا سنة مغل بيا فكان جار كلا تيفي وأجور أرور هراء صلاة الصبح حدا متكني وحن كلاه ناقص وجنا مجال نيروبي عاصمة الدولة كينيا وحن نقص عنا وقت وحن ناي سفر فك بدن بايلا صعدة كوح وانو نهاي علماء إلى صعدة أبوانا إلى صعدة وريال بايلا صعدة ترولين بايلا صعدة كامرمانا إلى صعدة يكوا كلو بدن جدي صاحبيال نصور راعة هالكي كوس عنا وحن كوس عنا ميل بان كوس عنا وهالكي هذا ترى ود الحيس يا مجال أنت تكتب المجال كلا عدد قيق بعد كرسة قيق بعد موقتي ميل قيق يسمح كتشي تون بعد عدد موقت الحيس كحوك في عيا هاي ميل دجنو درع عقارن له لا كذا عيسوا أنا جيل يلاندي إنا دادو وحن كوس عنا حرنتي أم حريه جيلا وذاك الرجون أم حريه كلا الرجون وان كوس عنا وان بدنا هاي نمان كيلا صعدة بان رامير يلا بو إنا نو يورو ووتش جوده أنا ننتصو ليش أنا تاجنا هدرنا وكالنتي شدالك كاريجا أنا كوش ويني برشة كيسنا أنت برشة داينا برشة ليج ماين ليجي سنة الوعب بري كاريجا ما ليج ماله برشة كده سودوا صاحبي يال حنير يا أحمد إرو وريا وينا وصاحب كيا وما أنت واحد بدن أتكفى أي دوتان سودوا أحمد كان كفر أفكار كان إلى ما يش الدور كأن تجنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين نبض يبرارة يبدبال عندي رجينا يا عافمات كورونا laga baqaya Allah idinka hayo wadayadu sibay wadnuhu noo figleeyahay waxaan soconaa meel dalxiis kama tagana aan dhan kama tagana xusuus dhaqankii iyo hidihii iyo noloshii kama tagana xiisihii iyo kalgacalkii Soomaalidu geela u qabtay kama tagana meeshii baan soconaa aana tag baan nahay Umar Maxamed Usteeli Allah u naxariistay abwaanka caanka Ilaahay u naxariistay wuxuu dhintay muslimiin aad gabayga dhool wiil baa dadka qaar u yaqaana rag wuxuu yiraahdaa rag laxaha si dhowray oo dhaqasho waa geel marka meel bay kaga jirtay dhol caanihii laga lisoo yara dhanaanaaday nin dhadhamiyay wuu garanayaa dhulay qaboojana goorta dhantaaba jirkaba dhidid ku qoyaa dhalaanimo qodxii kugu mudaa kaaga soo dhacay ragga laxaas iyo dhowrayow dhaqasho waa geel wajigaagaan tusayaa anu laba waji waan leemid oo ii daboolan yahay kana way arkaan intaan markaan meeshii tago saarin asxaabaan xiisaynayno geela dhaqda oo xiradii geela jiifta oo libaax iyo kala jecleen waxaasna waan u soconaa nabad baan idin rajaynaynaa injineer cigdi waa kan ciyaar kala socota kulli iga raaraga u yeeri doona socod baa leeyahay waxa ugu dheer jarmaada aan gadaal la soo dhugan jarmaadaan nahay annagoo tagnay baa la gaari doonaa ilaahay idinka adinkuna noo soo rajeeyo nabad inaan ku tagno wiil reer waqooyiga gaariga wada siba u sheelareeyaan bal inaan nabad ku tagno faataha isku soo dardara muuqaalka iyo edhiska waxa isku darsaday Cabdixakiin Ilbuuriyo injineer cidi waa laba cidi waa injineer Ilbuuriyo injineer cidi waan hadda wajigna tusaya Ilbuur dib aad ka arki doontaan عدي وكاله هالمرة. إلي عدي. يا. إلي عدي. وإلي عدي داس وحوي سدير رجع هرا شيئين ورجوا شرماضو ده ورجوا عدي عانو ساك وحوي ماشي عدي عان اللجوء جه بالله صعدا إن شاء الله إن أنا نبض نصونا نبض نقولنا نرجينا ده ووضع صعنا إن إلى دماتك. وحن تاجنا كارين تشيدال كانوا قاعدين نقودن بيسي هذا المجال ما كانوا كبحينه وديرتو سنة قارين نقولنا. بايلوتكي gaariga Xuseen waa nin dalka aad u yaqaana waa nin ehel geel isaguna waa ninka gaariga duulinaya si umbu u wadi doona aad nala arki doontaan kulli dhaxon sheegsana Xuseen mar labaad bad khiyaartii isku sokay caliseen asxaabta aad iyo aad baan idin salaaminaa oo idin soo dhaweynayna waxaan u soconaa geel ari kuma jiraan male oraad meeno qalaysaan ya hadda waan isku warsanaataa dib baan ku dhiganaata waxay noqonaysaa wayeel cuntada raadiyay ceebidaba taal aad baan khiyaarta idin salaaminaa soo dhawaada waxaanu leenahay wala geel ninkii garanayaa guud saruu maray oo waxaad wixii gaabiyaba gurada saartay oo waxaad adooga jaqaba gelax ka maashay oo waxay gurboodkay dhashiyo gabantu yustaa idin salaaminaa khiyaarta soo dhawaada safar baan sugaya jarmaadana sugaysa
dee waagii hore xoolaha la jarmaado gudin jiray warmanaga jarmaado gudinno horta gaarigan jarmaado gudin hadda gaarigan jarmaado gudinna qoliyii garanayay saaka saydii markii salaada subax la tukaday baan soo dhaqaaqnay Nairobi ka nimid hadeerna waa goor barqa ah oo 9kii subaxnimo aan ku sii dhownahay ama 3 saacade qolba say u taqaano Kenya waa ka sii baxaynaa wadan ay xuduud la wadaagto Kenya baan ku sii dhownahay xuduudkeeda beeshaanu tagno dib aad ka arki doontaan magaceeda dib baan ka sheegi doonaa hadii ilaahay markii ilaahay na gaarsiiyo si aad ugu soo ducaysan aad ugu mahadsantihiin darawalka gaariga wadaa waa kan waa Xuseen oo mar raasoo daawateen soo urursan nin saboolo iyo awrba waa sahal dhaqaaqan safar baan nahay wali galii geel ma gaadhin waxa weeyeen iyo waxaan nahay caanihi geel aad ogaan jirtaan kafee ama shaah idin haya anaga caana geel baan nahay meeshaan hadda marayna waxa la dhaaf bisilniyo oo niyo meesha baafinta bisha xasan ka maqli jirayba laga baafinay wani arna dadka soo luma waa meeshan soo gali jiray bal hadaan luna naga waraya saxaabta halka nala socda aad baad maasantiin waxaanu tagaynaa meel de quruxdeeda aad dib ka arki doontaan la soo raaca ilbuur waa muuqaalka duubaya gidigii sax bilaad baad maasantiin rag odayaasha la socdo ku ka muuqda halkaas ka muuqda wada jeedaan waa degdegsanahay nin iyo moogtay mar baan rabay inuu moogtay in ku darsado hadlo laakiin dib aan ka shaqeyn doonaa dilahaad insha Allah la soo raaca wali ma naan gaadhin laakiin laamigii dhiibsanaa baan ku degnay waxaan u degnay raf ama xagaaf baan u degnay waxaan maraynaa meel amagaho buuro iyo ay iyo dhudhuba iyo boholo isugu jirta hadda buuraha naga sheeya ama iga sheeya ciryaama daayisa wadaan hadda maraynaa biyaha aad u jeedaan roobkii raadkiisi weeyay saaka maygii helay meel miiraale ku onkaday oo may biyaha dhigay ama maalka iyagu daaqbiilay meesha ku cadaayay halkan waa toodada xagaafka ahayd waa sii dhownahay waa ka sii baxaynaa Kenya ka sii baxaynaa la soo raac tagayow ya laga tagin bay igu leeyihiin هيا إن شاء الله يديو لي هيا جزاك الله خير gaarigan wala gaariga kalaad or birti maarak لا هذا نشوف miya halka شوف معنا قال هذا gaariga riski jaganaga soo dhaweyn Ramadan tu goorma ma intaas aad baadho geel dhaqataay لا تعال ilaa saaka uu soo salaamayno hadda waxaanu ku sii dhownahay saacadu meel bay maraysaa harso kor bay ku sii dhowda xoga dhafoorkaas iyaga qoraxdu waxa xagga naga xiga waa buuro aad u jeedaan dhabarkayga ka muuqda halkii aan ku soconay safarkayga ku aadanaa wali ma gaadhin laakiin waxaanu galay dhul samcan oo degsiimada ku fiican ninkii garanaya xoolo moogta u jaan qaadaya waliba de xoolo isku jiraan geel xoolo kuma jiray tiraan mar dheere geel ninkii de moogtay raba inuu dhaqdo meel u samcan oo lagu talagalay baanu hadeer ilaa saaka aan dhex jibaaxinay intaan ka soo degnay laamigii wadanka Kenya mar raadin sheegay waa ka sii baxaynaa wadanka waa ka sii baxaynaa eel baan u sii dhoofay u sii soconaa anagu ma dhoofayne xarun wanaagsan oo geel joogo guri gubeedaho baan ku soconaa saaxiibadana daawada beegsay joogan cid ka soo dhaqanka jecel iyo cid ka soo daawata say u jecel yihiin baan anagu iyagu jecelahay gidigii saaxiibayal saad noo taageertaan ilaahay idin taageero nala socda dartiin baan halka u soo maray inaanu barnaamij qurux badan idin soo tabino waxaan ku fadhiyaa hadeer taan ku fadhiyaa magaceeda idinkaan weydiinaya meeshaan ku fadhiyo magaceeda
idinkaa idin weydiinayaa saaxiibada milgaha iyo maamuuska naga mudan kuwa kaloo dhaadheera waa sii korkoraya hadhow laakiin bal magaceeda afkaa juuq hore maanta idin sheego idinku soo sheega nala socda qaybaha dambe barnaamijka bismillaahi raxmaani raxiim roob baa xalay da'ayo saakan waxaa helay maya baa helay miiraale waxaa la yahay roobka habeenkii da'a ama gudgude mayana waxaa la dhahaa ka subaxii da'a meel mayay ku caariday oo mid kale ku caariday ama maalka iyagu daaq ama meesha ku caddaa buuri halkana waxaa jooga dee moogtay xawayaanka wixii ugu feeyigaa isaga iyo baalka la yidhaaho tukaha ugu feeyig waa eyga ma soo raaca saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin يا العصوبنا بحدان هلا وكو درينا بس هلا يبقى saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin saad noola socoteen niyadda noola socoteen iyo indhahaba safarkii dheer ayaanu soo gallay aniga saaxiibadaanu hayn dee meeshaan ku soo soconnay madaxa meel ka sarreyso la salaaxamin jirtaa la yidhi bartii aan ku socnay safarka ku afjarmi lahaa ama uu ka bilaabanayay mucdis ka bilaabanaysay baanu nimid xarunta aan ku socnay waa halkan waa madaxtooyada xoolaha waa duqa xoolaha waa geela ninkii axmed ila socday ama nala socday dee waka waxbuu ka lisayaa cabaad baan lisaynaa cabaad hashan cabaad baa la yidhaa tii hore aan wax ka lisayna waxaa la yidhahdaa culus mid hore lisa mid hore aan lisnay waa nirig baa iskula sidkan tii hore waxaa la yidhahdaa culus midaan cabaad axmed oo sidigta dadka qaar baan garanay dad xoolaha sharaxa sidigta sidig waxaa weeye halbaa ilma dhashay wuu ka dhiman karaa mid kale la ogolaysiinaya waxaa loo marinaya barnaamij hore way kugu jirto aad samaynayseen waxaa loo marinayaa madheertiya wixii indhaha laga xiriyaa kii baktiya baa laga qaadaa kana loo geliyaa ama waa la tolaa tolliinka haddaad sharaxdo xogaa tolliinku waxa weeye ciqaab waxaa la marsiinayaa fooshii oo kale ah jahadii iyo garashadii baa neefka laga luminaya waa ciqaab adag sankaa la xiraa sanka tuurin baa laga gelaya wax la yidhahdo waa la tolayaa waa la ceejinayaa waa la dhuuxiyanayaa qabri maaha intaasoo dhan baa la duubayaa neefku dhibtoona gaalna waa laga qacalaacaya way iska foolanaysaa maanta oo dhan iyadoo kooma ah ayaa ilmahan lagu duwayaa marka mid doorsantay way ogolaanaysaa saasaa markaa lagu maalayaayo nin baa hadda kahor ku gabiya qisadii ma gelayee geela qaar la tolaayo ma dadkaa la qasbaabu in waraabo qof nool qasab loogu nikaaxo qaadirkay ma bannayne ma wadaadkaa wuxuu yidhi ma khudbadan saxayn ma wadaadkaa qaldanaayo qamri bay ka biyeen kaftan gobolladaa laga yaqaano wey qisada u geli maayo qisa xoog lagu yihi marka qisada gelmayna gabadhu wuxuu uga jeeda marka nin buu saluugaya gabadha la siiyey uu leeyahay waa lagu tola maxaa loo tolayaa gabadha xoolo ma aha waa lagu khasbay macnaha geela qaar la tolaayo ma dadkaa la qasbaa in waraabo qof nool qasab loogu nikaaxo qaadirkay ma bannayne wuxuu yidhi ma khudbadan saxayn ma wadaadkaa qaldanaayo qamri bay ka biyin marka tolliinku waa noocaas waxaan is dhalin baa hooyo laysaga dhigaya haddaba taas ayadoon dhalin bay nuugaysaa lagu maalay aad baad mahadsan saaxiibayaal barnaamijka qaybaha dambe axmed baa daadihinaya xagga horena anaa xoogaa moogtay oo tootaynaya soo dhowaada geel wax ka lisaya inuu xagga hore ku bilaabaan jeclaa laakiin axmed baa geel wax ka lisayo sida nin shaqo qabtay sida nin shaqo qabtay waan xiiqa moogtay cabaar baan tuujiyey geelna saa ka cadeeyay geelu waa daras wala waan iska jara xalay baan isu diyaariyey inaan wax ka lisaha aad u maasan tahay qaybaha barnaamijka axmed daadihinaya ninka lis yaqaana cidiyaha meesha lagu qabtay cidiyo xoogaa basarku waa kala see loo lisaa sidaan haddaba u tuujinayay sida markuu daran yahay laba nin duugtaa labaan ku duugayna aniga cumar baa lisaynay waa saasaa loo qabanaya ciddada waa laga duwaya marka ciddada lagu qabanaya halkaasaa lagu qabanaya haddana maxay soo qabto maxaa dhacaya saas haddii la dhaha idaha loo lisaasaa iyo hasha ibaha yar iyo way go'aamaaraysaa de amaar waxay sheegaysaa moogtay nin wax u dhiibtay aw rimiyay de wax kale kuma garatide amaar baa leeyahay markay goojada saa leedahay mar ay deyso ay riman tahay baa jirta marka axmed baan weydiinay axmed markay goojada deyso waa markay markay goojada deydo macnaa inta riman tahay mise dhasho iyadoo riman maray joojisaa jirta moogtay waa dii xataa juuq tira ay goojinay ma marka ay qaboojisaa dee waa marka qaboojintaas maxay tahay qaboojin yacni maxaa afkee ku sharaxaa ma afka reer magaalka kan miyiga horta reer miyi ima weydiin maayo reer miyi baan ugu ah haye waka hash way rintay intaan
ilmihii uurkeeda ku jirin uu soo xaysman ayuu ilmihii waa banjarayaan dee wixii waan ka salme noolahoo dhan baa wada saasa marka kaadi raacayso kaadi raacin miyaa layidhaha kaadi raacin waan maqlay qolobasi waxaan rabnaa koorta inaan sharaxno dad ku sharaxnaa baar wayna garanaysaa horta waxa weye xoolaha marka la raaco nimankaana sharixi doona la jooga cilmi lagu raacay wax walba leeyihiin ari geel gamaan wax kasta dadkuba hab loola macaamilu leeyahay waxaa la isticmaalaa kaynta markay xooluhu galaan waxaa ku xiran bahasha aan tusi doono koorta la yidhaahdo geela curaddaah waaweyn ayaa oqaankaa lagu xiraa khaasatan kuwa macnaha san way hadli lahayd hadii hadal garan kuwa macnaha san baa lagu xiraa hasha cararto oo fogaato oo orodka badan lagu ma xiro hal degan koortaasay baranayaan marka geela yar yar wuu baranayaa koortaasay ogolaanayaan iyo hashaas marka ninka geela jiraa dee intuu hal xilkas iska maaluu barkanaya xilkas waan sharixi doonaa ayuu geed iska seexanaya caanihiisu xarafsanaya halkaasuu ka tirinaya wuxuu leeyahay culus xaggaasay ka koraysaa inta la socotuu garanayaa oo ay kaabaha u tahay wuxuu garanayaa maxaan ku yidhaahdaa hasha la yidhaahdo cabaad oo kale dhex yar oo kale koorihii buu halkiisa ka tirinaya kooraha markuu tiriyo waxba inaysan maqnayn ayuu garanaya kooraha yararka ah oo aan Axmed la joogin buu dhegta ka tirinaya dheegtuu ka tirinaya neefaf yar buu ilaaliyaa hasha orodka badan hasha afluulatada la hoday hashan inta geed ku taagantahay 20 ku istaagta oo la yiraahdo geela horti bay dhacdaa wayna dhimataa way ka hor dhimataa geela kale ayaa sabab u tahay macnaha degdegaas fudayd baa ku jira waxay ku muujinaysaa fudaydka xataa inuu xataa dunyada u fiican waa riski halkaasuu ka tirinaya halaha neefka baxsadka ama meel fog laga soo gaday ama lagu malaynayo inuu meel kale jan u hayo kaasuu isha ku haya koor yar u gaar ku xirtaa taasuu la socdaa hal baa maqnaanaysa ama wax baa maqnaanaya hebla koorteeda markuu waa inta la socoto uu ogyahay ninkan khabiirka geela dhex jiifa iskama jiifa meesha waa injineer maahana waa professor marka wuxuu samaynayaa in halkaasuu kala socdaa sheekada waxaa la leeyahay dhex yar baa maqan dhex yar dabeecaddeedu ku qiimeynaya haddii 10 meelood ujeedooyin kala duwan buu geela u fakadaa haddii u kala fakanaya xataa wuxuu sheegayaa dhex yar dabeecaddeedu ku qiimeynaya meesha ay ku maqan tahay inay haraadi tahay inay geela horay ay tahay inay hal gees u baxda geela gaar iyo gooni iyo loo bixiyo oo gees uga baxa geela halkaasay ka weheshataa koorihiisa la socota mana soo dhex gasho midu way horeysa midu way dambaysa marka dabeecadaas lagu raadiyaa sax waxaynu Axmed u dhex galeynaa waxaynu horta saaxiibay ragga geela la joogana waan sarkaynaa yeersug ragga geela la joogana waan sarkaysaan intuu tiradiisu tahayna waa idin sheegi doonaa bal waxaan u tagaynaa koortu Axmed sheegayo dad badan oo reer magaala oo qurbaha ku fogaaday ama tahriiba ku galeen ama si caadi ah u dhoofeen oo nadaawanaya jira milgeey maamuus bagidiga uga mudan yihiin waxaan rabnaa koorta la sheegayo bal inaan sharaxaad yar Axmed xoogaa inoo faa'iideeyo aynu aadna Axmed Narkeen waxaysan garanayn moogtahay kaamaradan iyo ninka isla wada madoow iyo la yaabada reeraha halkan degan miyaa mise geeljilatiin oo geelku yahay reerka halkaas noo istambu degan taarifa marka aniga halkan geela ka keeno reer wax ma samaysa adigu mise wali ma wadiyar waa meeshan magaalada degan yahay bisashan halkan ku digay war waa arkay xoogaa inaad ka duwan tahay reerka ku dhow leeyahay dumarka noo daa qurux badan ay wanaagsan inay moogta waan arkay xoogaa moogta wax xoogaa aad nucaysatay marka habeen geeladu hoytaa habeen guriga yaadta habeen geelo soo yeedaa habeen guriga aska tahay ma ku joogtaa inta ku jooga laba cunug ilaahay ku barakeeyo reerkaaga gabadha yarad ma ka bixisay mise waa iska guursatay sida dadka halka jira ma yad baan ka bixiyay inta qanaa waxa wax walba aan ka dhameeyay waxaan ku diinay ninka liyaa Naasiro bari hore gabdhaha yarad baa laga bixin jiray geel baa laga bixin jiray gabadha la sharfayo waliba reerkooda hadda waxaas ma jiraan maadaama adigu aad geel la joogto oo ragga geel halka jooga ay farbadan yihiin oo aad wax badan ka ogtahay mise moogta sida magaalada kale weeyo yaradku meesha ka baxayo ma way jirtaan ma taqaan waan siitaa geel waan sii yaradkeeda waan siitaa abo waad bixisay ma bixin aad baad maasan tahay ragga kale geel jooga la jooga aan sarki doonaa een wal soo dhaweynaa marka insha Allah waa dhaw saasa mid loo ku qaanayo sama saasa geel loo lisaa saas oo hadda leedina mid loo ku qaanayo sama hadda la lisay hadda soo qod geedka ushiisa halkaan bay ahayd halkaas saasay u dadbanayd
labadaas geedka u taalasay taagni injineerkii koor qorahaasaa u sameeyey ha u malayn Soomaalidu inaysan sanca lahayn markii saa loo diyaariyo oo la arko inay dhawaaq samayn karto ayaa waxa lagu xiraa carabadaas wixii ka dhawaajin waxa lagu qoro dusheeda iyo waxaan ka rabaa iyo wax lagu dalooliyo niyahow qalabku waa badan yahay marka hore geedka faas baa lagu soo goynaya ama gudin ama masaar kii la doonaba hal yiraahdo goboladu waa kala af Soomaali waa ka cudur daaranaynaa ereygaad la yaabto oo aad istiraahdo lama yiraahdo meel kale laga dhahaa laakiin haddaan isla gaaro tan oo kale koor baa loo yaqaan Soomaalidu koor bay wada taqaanaa waxa lagu qoraa geedka marka lagu soo gooyo faas lagu soo gooyo isagoo qoyan waa la rogaa qaabkii baa loo sameeyaa rogid bay yiraahdaan waxa lagu sameeyaa markaas shooka bah la yiraahdo ama qorin magacyo badan bay leedahay ayaa lagu qoraa markii saa loo qabo mid guda bixis la yiraahdo af dheer oo quudquutado kala oo dheer baa gudahaas si farsamo leh waa ajiib qofka qoraya hadaad aragto waxa arkaysaa inuu cilmi badan leeyahay inkastoo de anagu cilmigeena qofkii wax qabtaa uu eedaa cayba looga dhiga wax aan la qaban karin oo aan laga maarmin buuna qabanaya waxyaabaha nala haray bay kamid tahay ninka alaabtaas qoray aqoon buu leeyahay koortii marka saasa loo diyaarinaya dhawaaqi baa laga soo deynaya kadib baa wixii ka dhawaajin lahaa carraba loo yaqaano qudadna way dhahaan dadka qaar qudad iyo carrabay dhahaan kan hadaad sharaxday Axmed geedka kan hadaad sharaxday geedka laga qoro kuwan hadaad sharaxday geedka moogta ugu haboon la qoro inta geed waxa ugu haboon oo loogu jecel yahay himirka geedka la yiraahdo in laga qoro geeda kale oo adag oo ka dhawaajin kara oo geed miraya kala ah himirkuba waa geed miray oo kale oo laga sameeyo markii mareerka waa laga sameeyaa laakiin waa ku caydbax hadaad geedo dhan helaysa himir baa horta loogu jecel yahay dhafuurka laga sameystaa mareerka laga sameeyaa geed miray badan oo waxa jira laga sameyn karo himirtaas koowa number 1 geedo badan oo aan garanayna way jiraan anu deegaanada ma wada tagin meel walba si baa looga nool yahay koortii carbadeedii markay saas tahay xariga laga laalaaday dhakadaas labadii carba looga duleeliyay kadib labadaas laga duleelinaya xarigaas oo koorshiid la yiraahdo waxa la dhahaa niyo de moogtahay waan yaraa xoogaa ayaan baan ka soo maqnaa waan aqaanaa waxa la dhahaa anigu kale waxaan aqaanaa Axmed dhago u taqaan wayba noqonaysaa sababtoo meeshii sideedii laga qabanayay marka kulay koorta magac bay ana ilahayd marba geel ka lumaado aad iska daba gashaado adoo nafaad maalinta dambe heshaa soo iska gaaxday ama magaciisi ma wadatid hasha koorta laga furaa meelahaas waxa laga geliyaa caleen waa lagu maalaa waa weel Allah xor badana aad iyo aad shumbuur yar oo heer sare waxa la socota adoore yar oo flavor bay dhahan dadkan mugta intay wax ku waxayaan baa la socda koortii saas hasha loogu xiro marka qoorteeda lagu ma dhuujinayo waxa la rabaa inay sida ugu socoto inay sida ugu socotaa rabaa haday fursatan ay ka dhicin hashan marka waxay hogaamiye u tahay koox geela qayb kamid ah ayuu hogaamisa deganaansho iyo xasilooni iyana ayaa loo raacay inaysan carcararin oo magaciisina sababtoo in waalan bay noqonayaan inta raacda macnaha hasha koorta lagu xidhay waa inay tahay hal degan oo miyir qabta oo isgaarsiis waxay barbaarinaysaa ubadka geela lagu soo daro dhan koorahay kala ogolaanayaan hasha ugu horeysay ogolaadaan ayay dabeecadeeda inta badan yeelanayaan waxa kale oo saameyn ku leh awrkii la qooriyo hadda aan sharaxaynay dabeecadii lagu bartay awrkaasi kii ku horeeyay iyo hooyadiis iyo marka saas way koortii way socotaa geel jiro markuu jiifo hashu markay saa leedahay wuxuu dareemayaa way socotaa hashu haday saas wixii ku hayso way daaqaysaa haday fadhido way qarwaysaa bal dhaa koorta way qarwaysaa bal iraada saaxiibayaal aad baad maasintii waxaan wax badan ka faa'iideen Axmed anigu qudaan ka faa'iiday waxa hubantiya de hal dabeecad xun haday tahay oo aan deganayn inta ma ana taagnaanin hadeer way nagu tuman lahayd ama inta xanaaqday ganafka nagu dhufan lahayd inuu nooluhu degan yahay diinteena aad bay u amaanta waliba dadku inuu aad u degan yahay diinteena aad bay u amaantay fudaydka waxa lagu sheegay amal shaydaan aad buu xun yahay wax badan wanaagsan buu ku dhaafinaya marka iyadoo xoolaabay si ay u degan tahay waxa lagu doortaa deganaansho rabbi siiyay baa koortan loogu xidhay geela kale ma wato kamana tagayo marka ayda gasho waag joogaya si Axmed sharaxay ama iska tahay taado de in badan baa sideeda u ogolayd waxaan iloobay marka taas waa inta la raacay qayb kamid ah xoolo way dhumaan wala isku qabsadaa tuug waa jira dhac wuu jira maxay noqonaysaa aniga halba iga maqneed oo cabaad baa la dhahayo waxay ahayd hashaas ma aragtay gaafan bay ahayd oo leexada ama majiir kale intaas jirtay ma shaqeynayso kabaalka yeele ummadba may waa far
مفربا فروي تماك صباح موجي فريا هريد بيلاده أما ألف يدقر دكار شيدين ولا حتى ألف يو ألف يدقر نوال اللي هذا دقر ها الله أفكين فربا فريا هريد نوال ده صح أو كا هريد باللي هذا تنوافر أنا وحنا قال مفوش قنطة يا هريد أنا وحنا قال متقنا ألف سركة يا هريد يا موقتي يا قنشجوب شيدة waxaa la dhahaa dhakaarshiidi kuwaas hadduu hoostan yahayna weliba lahaan jirtay timaha ka soo baxay sida aan arko halkan waxaan malaynayaa doobashiid baa la dhahaa hadduu halkan yahay shiidku hadduu halkaa kore yahayna waxaa la dhahaa dhakaarshiid dhinaca kale inuu ka leeyahay culus xagga kalena way ku leeyahay marka sumadaasuna waa saas maxay tartaa waa astaan neefku wuu lumay wuu soo istaagay rag buu imaanaya yaa arkay buu leeyahay hal noocaas oo da'daasoo rimayaraahoo نيري هالكلا يسكو ستكين هين وألف يهرد لما فريق دقر له يلا بدك كارشيد أو مذو أو سنة نشندن الكوتشرتا له حميدك تاله وأبو ليه موقته قيل شنو وقبير ومركبة مسكحة وكش قيسين هذا هالكان مركان سكني وأنا يوحي كورونا هاي أفضوبك واسكف الرسوم ولي واحد ورمان تاي تنيو سو قوتشني صدق كوتشامار وحي شيء وحي شيء إني رمان تاي مقرنيسا هالكان هشان وحي كل هذا هاي dab hore weeye kulay xanuun baa jiray waa la sancay sumadaas markaa waxa tiri waxay moogtay keenaysaa ha dadkuna de waa aag iyo deegaan iyo qayb waxa dhigta group hebel baa dhigta la leeyahay ama cid heblaaya sumada dhigata marka waxbay ku sii kala soconayaan dhagaha dhakaarshiidina hadda waxa baad soo calda baad soo calda alif iyo daqarku inuu cid ka dhaxeeyo dhakaarshiidida mid leeyahay ama falleer leeyahay ama fur leeyahay ama dacal jiridii leeyahay waa la sii kala leeyahay waa hadda qof baabuur laga xaday oo kale aniga Land Cruiser meeshan pinki ha ii yaalay ama madow ama cad Land Cruiser de waa imisa oo magciisa taargada maxaa loogu xiraa gaadiidka in sumad lagu raaco ijiin number buu leeyahay laga taxaa waa taarikada buugeedii weeye iyo ijiin numberkeedii waxa si wadato caalin hortiisa wax lagu biiyaa waxa la caalin hortiisa wax lagu biiyaa suu ku saxo daa hadda iga saxayo hadaan moogtay khaldar haliga ahaada waxaan rabaa inaan janjaarka ama leexada aan yar ku daro waxay leedahay janjaar midigta ama leexa midigta bay leedahay waasha midabkeeda la idin sheegay inay aad u weyn tahay waxa ku cadaynaysa saynteeda cadaatay hadda waxay ku jirtaa geel haduu weynaado barwaaqo uu joogna ma dhalma daayo kullu intaan ka aqaano laakiin caalinka baa ila socdo maanta waxaan khaldo arday baan ka ahay saaxiibayaal soo socda ragga geela la jooga ayaan is arkaynaa oo is wareysanaynaa qaybaha dambena barnaamijka Axmed baa moogtay la wareegayo anigu waa ka xilaahay waxa duubaya injineer Cid iyo injineer Ilbuur ina kan saaxiibayaa tawi wuxuu ku socday banaanka inaad tagtid Ilbuur waday kale meel la tago loo safro xashka mooyaan anigu igala qaadsantahay halkan ama xaramka de in la aado run baa wanaagsan in halkan oo kala imaado waxaan ugu dareemayaa og qaar baa dhaawaa dalxiisana inta magaalo ka tagaan bay magaalo kale u socdaalaan moogtay waa qof magaalo de baadhi bay oran jireen meesha hadana jow lahayn oo geel joogina aan la dhamayno hawo moogtay dabiici aan qaadanayn aniga dalxiis lama aha dalxiis iyo shaqo iyo aan adoon inta waa isugu jiray hawlo kale wali barnaamijkii baanu dhex kaga jirnaa Axmed iga horta waa run xoolo qiimo badan baan la joognaa oo Soomaalidu jacaylkiisa ay ka siman tahay sax waa laga sameeyaa rag iyo dumar qof yar iyo qof weyn waxa lagu kala duwan yahay nasiibka qofku Ilaahay siiyo kan kale sax iyo firfircoonida iyo dhaqan wanaaga inuu qofku dhaqdo sax marka waxa la is xasuusin karaa xataa qofka xoolo moodarka la yiraahdo uu jecel yahay geela waxa la qofka aan dayacaad badan xoolihiisa dayaca waa ardayga iskuulka guugooyaha oo muwaga aan fiirin fasalka sii gal daaqada ka booda waa jirinahay yiraahda kanuna shaxbu ka aadaa habeenka dhaantu ka aadaa ciyaarihi iyo wixii xoolo moodar baa la dhahaa ma baad iska waxa la yiraahdaa xagashi maalinkii dhidida ilaa sidoo u fadhiyo qofku uu ka dhidiyaa xagasha kuraastan ma jirto marka xagashi maalinkii dhidida habeenkii bay dhiigtaa caaw dhan buu raadinaya de dhurwaab uu la siman yahay iyo libaax ما كان واحد أحمد وذا حسوسية فدي كلية بالله توم فدي كاكعي مثل واحد تراها ورابها مركل سوق هذا ورابها ما بدن بليه مركل سوق هذا واحد هان وحلو لي ورابها قرمة دركته مقاسير واحد رجع لما تنشر جيت كبرقدي ساحي قرحة يقول عادي مركل عادي حلا يلهم بودان تيجي أصلا نقول يا جيل واقعي من بدن هاي
dadku suu doona u yaqaanaa inuu qiimo badan yahay qur'aankeena ba ilaahay baa ku sheegayo yaa xataa macnaha waxyaabaha nala soo warmiyada arkiin baan leeyahay moogta miyada arkiin waa kalmad aad u culuso ma aqli miyada aqli lahayn miyada waxaan garashaa lahayn sida ilaahay wax sameeyay macna buuraha saddex arkaynay adduunkaas hadeer waa anagii daruuro buuraha ka hooseeya agmarinay waayo anigu wax badan baan waxaan ka cudur daaranayaa 20 sano ama sanadii wax la eg xiro geel waa iimaanta sadiiqo 20 ma jira markaa ma waa markaan yaa magaalada baa bilowda waxba inta saa la isu yareeyo midab la ismariyo dhar qofka tuujiya la xirtay xogaa moogtay gabdhaha la gooyay halkankaas aniga gabdhaha igu filka ayuu naga dhaxeeya sax hadba intay sheegato ayaan sanad ka weyn haday dan moodo 10 ha tiraahdo 12 baan jira 40 haday tiraahdo 40 geelan si dhaxgalaa waxaan markale ku celinayaa iga ruma dhameyn karno geel sharaxaadiisa u baahan laga sheego sax hadda waxaan ka soo sheekaynay qaabka dhaqanka iyo magaciisiga faa'iidooyin ayaa jira uu leeyahay ragga geel aqoonka ah ayaa iga mudnaan lahaa oo geela meesha ka dareerayo dhan mid walba raadkiisa sheegi lahaa hadduu xataa qayb yar ka arko wuxuu sheegi lahaa raadkiisa neefkan waa raad maraadka geela dad reeqaba jira geelo meel maray baa la sheegay waa hebel iyo hebel xataa waxay sheegayaan rag badan oo anigu aan garanayo barnaamijkan ay fiirsadaan baa laga yaabaa Cabdirashiid Maxamed Cabdillah la yiraahdo ayaa kamid ah Jamaal Jaamac baa kamid ah Maxamed Warsame nin abwaan oo geel dhaari oo haddana maansayahan ah baa ku jira dad badan oo aan garanayo mucjiso ah wuxuu ku leeyahay neef waxaan arkay aaranka halkan maray awrkii hebel ahaa baa dhalay waxyaabo aad la yaabaysid reebaadiye wax ma yaqaan horta ha ku riyoon weliga wax badan oo reer magaal aqoon barana doonin buu yaqaan reemigu haddii dhakhtar lagu geeyo oo dhakhtarka lafaha kii xanuunada guud kii magaciisa lagu geynayo geel markuu xanuunsado dhakhtar buu leeyahay jaamacad muu tagin dhex joogiisa iyo fahmada ilaahay siiyey iyo oonta nadiifka ah oo cunayo aan qarasta iyo bugtada iyo magaciisa iyo cholesterolka iyo waxiga lahayn maskaxda fiyow ayuu ka keenay inuu hasha kabayo socodkeeda qaabkay haday xanuunsan tahay u foorarto ama u fadhido ka fiirinayo aan wax yar aan fiirino hadda hashan waa la sanceeyay socono xanuunada laga sanceeyay hashan oo kale dhaawac baad ku yeelasho wax ma sheegayo kan wuxuu ila eg yahay inay qar oo kale ka dhacday dhaawac oo weyn baa gaaray macnaha buur oo kale ka dhacday buur bay ka dhacday markaas ay u socotay meel baa celisay ama dhagax ama geed meeshii celiyay baa dhaawac u yeelay baan isleeyahay waa saas waa dareemaysaa soo maaha saaxiibayaal waxaan u tagaynaa hadeer deesaan u sheegnay 2 iyo 3 iyo 4 iyo barnaamijyo fara badan geel lagama geeyon karo anigu waxaan ka baqaa inuu jeynuhu geel dhaqdo Soomaalida geelan ku dhacdo moogta caraf jilifoobaan indho furux ku dhaco waxaan u tagaynaa bal awrkii aad markii hore arkayseen awr ka weyn oo nirgahan aad arkaysaan dhalay oo halka joogan loo soo sheegay sidaan u tagaynaa Axmed Keen kii haday xaal baan siinayna ninkaas raalaha baa oran doona ama hana fahmayaan fahmin kii cornel buu noqonayaa channelka hadda aan soconnaa ma garad intaan sii soconana cilmi badan baa ku jira oo geela looga baahan in la ogaado xagga caafimaadka waan sheegnay oo qofka qabiirka ah loo geeyo ayaa neefka daaweeya wuxuu leeyahay garab ayda haysa waxa haya sabaad baa jira waxa jira jug baa halkan ka gaartay feex baa jirta oo kale waa laga qalaa geela waxyaabaha soo dhan baa jira qofka khabiirka asaas sameynaya lama wada tolo ragga tolo waa rag gaar ah hooda ahaan iyo farsamada sumadaha ii muuqda saaxiibka Cabdi Xakiin kaamirada hadii qaalintaas waxay leedahay qoorjiid iyo qalin bay leedahay qalin shiid saaran yahay taas ramsan waxay madaxeeda halka ka muuqda qaalintaas hees cajiiba waxa jirtay marka حتى محل هذا قالنت سبب باليرهذا قالنك waa labo mid waa midka hashan fiilka midabkan fiil baa leeyahay saddexda nooc cadaanka geelo midabkiisu waa saddex kiiba saddex si yahay cadaan iyo madow iyo guduud weeye cadaankii saddex uu noqonayaa guduudkii saddex madowgiina saddex aniga aqoonteed waxaan qaldo waa awal baan sheegay inaan wax qalqaldi doono nooc ka mid ah waa fiil baa leeyahay qalinka ku yaala waa qalin godane kaana qalin masaar baa leeyahay geel jiraha ku heesa wuxuu yiraahdaa ardaydu markay quraan ka dhigato looxa soo xariiqta qada waatan saatira marka dambe oran jiray wabrigi looxa lix ma jira hadda wali meelu ka jira uu yaraada hadda buug baa salagle iyo qalin marka waxay ku heesayeen daan ku qalin leey yaa dugsiga baray diinka yaa u dhigay waaba duunye baa la oran jiray daan ku qalin leey
ماشي diinka yaa u dhigay yaa dugsiga baray waaba duunye oo digra u dhigay ku dardarkaasaan kaa jeclaa wax badan inaan iga dhimayn waan kuu sheegay iga row hadaaya waxaa tiri nin balaaya ka dhacdo geela aad u yaqaan ayaa waxa hal mar baan israacaynaa geelba haddii la yaqaano ninka ugu aqoonta badan baan idiin geynaynaa nakeena ninkii waa kan mar waa aabe oo xilkasnimadiisu leeyahay waxaa yaryar asaa dhalay hadday isku horgooyaan iyo hadday ku cayaaraan iyo si waxaad dareemaysaa inuu si naxariiso ku jirto sida aabbo ubadkiisa waad ka dareemaysaa waxaad ka dareemaysaa xataa hasha markuu cayrsanayo ama roorsanayo hasho xilliga aabahoonaysa qaar ba haddaysa aba sax ahayn way cararaysaa feeri farlaa buu uga daba tagayaa noolo dhan baa saas qaar sharaxaad baad wadaa waxaan rabaa aba sax laga leeyahay inaad sax waxa weeye markuu neefku maqsuud ku yahay oo ay hashu awr mudataha tahay xilligeeda u baahan tahay bini aadamku iyo arigu orgeysan yahay baa la yiraahdaa iyo lo'da way orgeysan yihiin baa la yiraahdaa idaha way asoolan tahay baa la yiraahdaa geesliina waxa la dhahaa way orgeysanta ayadu waxay la tahay lo'da hashu aba sax baa la yiraahdaa qaalinta way burisay la yiraahdaa markay qaan gaarto astaamo ay bixiso baa jira oo ereyga si loo yeeyo xasuus way burisay buris ha waxa weeye waa geenyada way bay dalan tahay meel oran jiray geenyo bay dalan good heer arlaadi ana geeka may ka hadalahaaye qalag alaleeka doo waay ma tir leeka hadalahay laakiin af Soomaali leeyo hata madii aan eraay oorka markuu hasha cayrsanayo markaan lahaa oorka madii hala dugadaw hoosu dugadaw ariyoho aan kooya ku wareegadale akaaraha usuba may ku ayaa generaalkii dhamay af Soomaaligu far badan yahay lahjada aan garanayn baa jira waan ka cudur daaranayaa Soomaali geel jacayl bay ka siman tahay asalka ereyga gaal buu ahaan jiray sida af Soomaaliga hore sheegay ceel gaal harub gaal nin saaxiibkay aan jeclahay oo la yiraahdo asna geelu jecel yahay ma garanaysaa ninkaas aad baan waan ku salaamayaa meel kasta aad joogto kiya salaamaysa ninkaas saaxiibkay oo geela jecel oo Soomaalida magaca u sida gaal jecel baa la yiraahdo nin saaxiibkay waan jeclahay gacal weeye hidaha iyo dhaqanka ilaaliya والله aad baan ahay dhamaanteen ku salaamayna ninka moogta uu sheegay sabaabtii Soomaa aad iyo aad waan jeclahay wala gacal weey ma sha Allah xalaal qudato qof soo galay jecel baan jeclahay isagana gaal baan jeclahay ninka uu sheegay ahad yaqaan awrkan baan soo noqonayaa faa'iido u leeyahay geeligu sidaas cayn ahaan waa loo xulay wixii waan ka sheekay dabeecadihiisa caanaha waa laga fiiriyay marna haddaad degan tahay qol aad degan tahay ama guri aad degan tahay dhowr qola oo sariir yaalaan oo maacuunti jikada taal oo tawleedka xagga yahay oo miiska qaday wixii xagga saan yihiin oo haamo waaweyn oo biyaha yaalaan tubaaba la isticmaala adi kaydka biyaha markaa yaala biyaha dunida kayd la'aan lama noqdo ninkan inta la soo fariisiyo asoo aad moodid inaan wax culays ahayn baa waxaa la saarayaa reer dhan wuxuu sidaa biyihii gogoshii dharkii cuntadii caruurtii habeenka la guurayo haday mushaadeedo taxay habeenka umusho ama ay xanuunsan tahay ayada ciyaalkeeda waa la saaray ariga dhalay maqasha intaan socon inta saa loo kala dhaaway la saaraa markaas uu dhaqaaqaya gabayo badan buu leeyahay waxa anigu suugaantii xoogaa bariyahan arin aan idin ka qarinayo marka la idin sheegi doono aad dhafoorkayga ka garan kartaan war dhafoor buu ku yaalay baan suugaantii la ilaaway meeris cajiib ah laba meeris oo aan gabay dheer ka hayo waxa jiray halumaalinkay gablantay awr dhashaa waa mahmaa nirigtaa la jecel yahay soo maaha awr hadday dhashana dee qiimahaad aragtuu leey marka maalinkay gablantay awr dhashaa micnahaas wuxuu ku tusaya hadday awr dhashana waa wanaag hadday nirig dhashana waa wanaag marka nin baa gabay u adeegsaday mahmaadaas oo laba meerison ka xarf wuxuu yidhi gablankeeda unbay dhashaa gacaliyow awr oo aan la'aantii la guuri karin geedi rogasha oo geedi yar iyo meel yar wax ka weyn iska daa waxa weeye 100 kilomitir buu ka keenayaa biyo iyo baad iyo safarkii baa lagu aadaya hadii cadkiisa loo baahdo ma sha Allah awrka kuma jeedna la jecel u leeyahay intaas uu ka xanuun badan yahay awrka baarqabka 10 halaad haday hadda wax gaaraan ama lumaan awrka markii safiinatu sahara good waa la fuula waa lagu safraa wuxuu qaadayaa xaaji qamsiin buu qaadayaa baaburtan Toyota fowl draft waaweyn qooqanta iyo loo yaqaan saarifta iyo buu qaaday way xasuusay moogtay tudciyo ku jiray
guura wuxuu kugu marshaa dhulan gaari marin karin gelan hore wuxuu kugu furaa magaciisa xasuus sheexya geedale gelan hore wuxuu kugu furaa adaa ii marin doona mid yaroo aan ku daraya iyaduna jirto waxay ahayd nin baa wuxuu yiri Axmed gabay hasha uu soo qaadanay nin gabyaha Allah naxariisto ninka waan aqaan magaciisa Cabdi Maxamuud aw magan xaaji Cabdi Maxamuud aw magan Cabdi Galay xabaal la yiraahdo Allah naxariisto waan aqaanay 2013 meelahaas buu ku dhintay adsaba oo xanuun loogu qaaday saasaan maqlayay qiyaastii la kulantay Axmed intuu nool bar ha gabayadiisa markaad u fiirsato ragga geela jecel nool buu kamid ahaa geela waxyaaba igala cajiibsan buu lahaa ninkaas mood buu ku gelinay macnaha markuu ku sheekeeyo intuu sagabyin buu wuxuu ku geenayaa wixii uu ka sheekeynayay markuu gabayga bilaabaad waxa ku sawirmaya inaad wuxuu abwaanku ka gabiyay dareenkiisii oo kale kugu sameynayay wax cajiib ahayd markaas gabaygii oo kugu socda goor u dhamaaday garan maysid igu soo celi ها من حشمت بدن وها قبيضة واحدة حوداي لحية طبعا هلا وذا قرتها وقاب صدق قبي أورنجري بوداي وحشيني لا هون حريص حج كيسي عبادهم كن إن نظافة بدن جيل شال حرقة بدن رقم أحسن بوها وحياة بدن أو اللي رجوا صوت الهين بنكو أغني قبي قبل هاد وها قبي وجيل معنا قيمه سي وكتيرنا يصوب أديك عليه وهاد بكو جويني مركا أوركو أكو تشري سجوا سجال تشري مركو ساد جريه شو أو وحي الله sidin la mooday maraakiibta nimanka Soomaaliyeed suubay adiga laha waxaan qalday rag baa sixi doona suubay adiga leh markab ku soo qaad maraakiib haday dad yoogaas haystaan maraakiibta Soomaaliyeed waa awrka suub baana dhashay suub haday geelo dhan bay markaa u taagan tahay hilibka markuu ka sheekeynayo kala hadii malagu seedaha jaro saanta laga jiido soo macaan sakaar iyo lag iyo sarar baruuday oo dhammaan sukayaha ku filan suubay adiga leh wuxuu ku sheegay qiimo leedahay dhan buu ku sheegay koortii soo sharax horta uu xiran yahay waa tan wax kala u xiran wax kala u xiran oo halkan ka lusha aan jecelahay ilbuur inuu dadka tuso in daawanaya koortii ma aha kani suumba ku gadfan ama ku xiran ama ku dadan oo lagu sameeyay waa koorta wax ka horeeya koortuna wataas bal waxaan rabnaa waxani wuxuu yahay inuu Axmed inoo sharaxo Axmed soo dhaw halka soo tag waa sharaxaya horta koortu waa tii oo kale cayn ahaan waxa la yiraahdaa afjeex weeye magaceeda haday waan ka tagnay meeshan ay ka lahaanto way dilaacdo markay dilaacdo waxay dhuminaysaa dhawaaqi wana taas xarigi wakaas korshiidka aha waa carab kaliyaale isaga kii kale uu ka go'an yahay dabcan laba carab bay u samaysan tahay ninkaani waa isku filan yahay malakumuud iyo mooyaan wax Ilaahay soo diray waxyaabaha yaryar oo magaciisiga kama baqo ha ninkii halista aarka ahaa baa laga yaabaa inuu wax u sheegi karo haday waliba ku goobtaan libaaxiide waliba halkan joogo aad uga baxali ha eeriyada uu joogaa uu salaamaya haduu asaguna nala socdo aad buu u joogaa koorti markay saas tahay kor waxa ka xiga horta waa xirsi ama waa qardhaas xirsi ama qardhaas maxay tartaa waxay tartaa xoolaha waa la quraan saara ninkani geela marka saa loo fiiriyo qof waa neefka ugu horeeya isha ku dhacayso wuxuu leeyahay itaalkii iyo haybadii hanaankii lagu xushay buu leeyahay iyo quruxdii lagu xushay waana neef laba oo markuu qaangaaro uu ka wan yahay asaagiisa dhadiga ishu markaba way qabanaysaa lex jeclooyin buu dadka ku qabanaya il badan baa ku dhacaysa iyo inuu de barakooba aduu quraankii Ilaahay baa ku qoran baa lagu qoraa qardhaasta kadibna waxaasa lagu jaxaasa uu iska quraan saaran yahay ishu ka difaacaya waxyaabo badan buu yaani ka difaacaya quraanka Ilaahay de waana dawo waana magaciisi yaani adkaar baa ku qoran iyo waxaasa ku qoran awrkan marka qardhaas buu leeyahay marka adigu waa xirsi xiran adigu wax lagu tala galay nihaaya waxa weey waraaq baa halka ku jirta dhexe tana dusha waa lagu jahaasay badan iyo quraan iyo waxa ku qoran bacaa lagu sii waxaya macdan baa la sii gal marka kadib kan la gelinaya marka roob kasto ama gaarayo quraankii nijaasana ma gaarayso adkaadku ku qorayd qoyaankuna ma gaarayo markii loo baahdo asoo geed laga qoray hadda kan harag baa ku jaxaysan asoo geed laga qorayna waa la sameeyaa geed nugeelka qaarkii baa laga waxayaa gees baa laga qoraa waxa la gelinayaa wixii bacdi wixii ku habaysan oo macdan lagu waxay kadib baa mid kale lagu dhaabaya ninkan waa saas asagana calaamad buu leeyahay haduu lumo waxa la oran doonaa riti baar qabaho laba qalin joog iyo qorjiid waxa la oranayaa waa tagtay ii kala qorjiid xagan aan fiiriyo saas kale ahdaday sabad buu leeyahay waa tii Axmed ritigan haday qaalmihan sheegaynay qalin godonu waa saddexda nooc midkii
weli uu ka badan yahay qalin faraar baa jira mid la yiraahdo saasa oo sida udubkiya hore ka kala laxsan mid waa qalinka godan mid waa qalin masaar kan waa qalin jooge marka laba qalin jooge iyo qoorjiid buu leeyahay tigaan sumadiisa si kale in loo yaqaan waa laga yaabaa dad baa sumada kale gololo iyo waxba la sheegay in kastoo golada ay gadaal inay ka laabnayd iyo wixii iga kala maqan tahay marka ritigaan mid mareeg liya soo bajida Axmed mareeg ha waa tan iyo tu kale meesheeda kale inta laga soo bilaabay la isu keenay mareeg waa saas waxa laga keenay mareegta waxaraha la galiyo qool baa la galiyo ha marka waxar qool la galiyo ay la go'do kale oo qoortii ay ugu jirto qoolkii ama ritigaan oo qardhaasta laga bixiyo kale bay ku noqonaysaa mid kale jirto alif oo kale hadda alif tii moogtay quraanka meesha bilaabay alif ha waa ama far af Soomaaliga markii xagga nuun baa jiro miin waaban arkayna hadeer nuun iyo waxyaalahaas cayn baa arkaa deel baa jira hashaas kale hadda deel bay leedahay xuduudda ah kor u jeeda ay leedahay taasoo alif bowdada bay leedahay dhibicdaas shumayna waa la yiraahdaa alif iyo shumay bowdada sumado mid kale markaad Soomaaliya gudaheeda markaad 50 kilomitir socotaba waxyaabo badan baa magacii loo yaqaanay magacaan ahayn baa u tagaysa afkeena wuxuu yahay afhoodan oo ma sha Allah صح marka saas waxay laakiin ka siman tahay jaale geel garanaysaa hadda midab meeshan aan iiga muuqan kila midabadiisi ha ma jiro waxaan ii muuqan waxa ku yar dacarkii hadda uu ku jira oo waliba dacar madowgii dacarkii siifka madow bacad waan arkaa midabada maaragtay iska yar fiilkii waka mid boos leeyahay waxaan soo mataqaan boos midab aan may anigu midabka hadda sii jeeda halka sii jeeda halka sii jeeda kashan cad fiilka adigu aad ku sheegaysa fiilka mid ka duwan baan anigu aqaanaa fiilku midabka ka hooseeya oo cadaan kale laakiin ka yar ka hooseeya oo fiil darur leeyahay malmalna waa kaaniyo boos baan anigu aqaanayo moogtay laajadii baa badano waa fiilka asalka ah hatta xaadi indhaha way cadda midna waa fiil malmal oo xoogaa yar oo sida hadda midabka saynteeda oo kale adoo midab yar waxa ku jira dambar yar ah asagoo bahalkii ah midna wada hasha midabka cad oo gareed cadka aan dhahno maarto cadaanka ah sada aha marka noocyadaas uu noqonaya may baa jira cad oo waa cadaan la oranayo ma garanaysaa saaxiibayaal aad baad ugu mahadsantihiin saan daawanaysan barnaamijka waxaan filayaa wax badan baad ka faa'iideen kuwina afkaartana la wadaagayay qaybta commentiga ku reebayay si gaar ah ugu mahad celinayaa anoo guddigiina waan salaamaya haddaan hebel iyo hebel ahaan magac dhaweed xoogaa waxay noqonaysaa inaan moogtay dhinac u yar janjarsaday guddigii idinkoo isku duuduuban dhammaantiin rag iyo haween ama marwooyin iyo mudanayaal baryahan gabdhaha la horreysay ama gabdhaha iyo horeeyo oo waa jecel halkaas ay saaran yihiin halkan way yar tahay madaxa waad ka daadanaysaan ka sheelaabtan isku sitaa dhammaantiin guddigii waan salaamaya haweenkan si gaar ah u salaamaya gabdhaha la daawada ee milgaha iyo maamuuska mudan cid kastoo noo dhiirigelisay barnaamijkan jecel iyo cid kastoo garab nagala qaadatay ama garab nagu siisay dhammaantood waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin geel hadda uu dareerayaa xarada wuu ku daahay saaka wuxuu ugu daahay dhowr sababood awgood annagoo nimid oo meesha moogtay nimid oo barnaamijka diyaarinaynay ama barnaamijyada ka diyaarinaynay iyo arwadhutunaysaa tani way ragaasanta dhigta arwadhutunaysaa inaan u sheegno nimankii gaadhu la joogay iyo xalay roob da'ay roob baa intuu da'ay buu ku raftaysaa xooluhu hadday roob da'o oo habeenkii roob helana xarada hore laguma sii daayo xoogaa waa dhalcaysanaya qorraxda lala sugayey annagoo caanihii dhammaan weli maydaan arage dee halkaasaanu ku dhammaynaa jirikaamo iyo hadhuubo intuu way buuxaan marka barnaamijka qaybtan halkaa inoo joogto qaybaha kale la socod wanaagsan aad baad u mahadsantihiin sharafta iyo milgaha aad naga mudan tihiin mar iyo labo anoo idinku idhaa kuma soo koobi karo runtii waa idin jecelahay ilaahay ha idin jeclaado dembigeenna iyo kii waalidkeenba ilaahay ha dhaafo jannada ilaahay ha nagu kulmiyo waxaan leeyahay uun qof kasta waxaad ogaataa dhaqankaaga dhaqan dhaama gabadh baa haysa waxay tiri hadda wax aniga dhaaman la waa miyay awal intaan wax jacayl wax naayib dhaaman la waa miyay ahay wax jacayl dhaaman la waxa dhaaman la waa bay tiri wixii garanaaye lawaa dhaqankaaga wax dhaama waxaad ogaataa dhaqankaaga iyo diintaadu way isku larban yihiin ama way isku siskan yihiin ama way isku lamaan yihiin ama way isku lifaaqan yihiin awrkii waa kan doorkan kana hor booqay ina awrkii soo jiyan rabaa awrkii barqabka waka waa janaalkii Axmed sharaxayay halkaas sii socdaa labada awr markaan ragga geela jooga weydiiyay waxay dhaheen kana geela gugu dhaweyd ama sanadkii naqi ugu dambeeyay galay kala mariiso magaca maxaa saddexan Cabdi Nuur rag geela gacanta ku hayay inta sama awrkaas sii socda ma awrka geela ndigaa ka dhalay ama kala dhalay
ما كان كلا كاك لا عبد الله سوما أها كان مركب محوية يسوق ما هذا العربين يلا ربع إنه هذا الرأي إنه وده كيا اللي قدره أها أوكي كان مركب مكسر ده مسافر كذا ما أور كلا أوكي أور كلا أو تمركب رجل إني واحد قور لقى دقيق الرهيبة ما برق لقى دقيق حيوان اللي قدره تمحك كذا أورته أو أورت إن ديرتاي أو مر اللف إلى هذا مركا مدح قرحان تاي كاب كلوه وين ساسا مركا لو فيره هدول دوبين هدول دوبين قور مله شيء معيسي وكله ها اوكي انا كل لو بربرين ليهي لف لي قورت ويهي سنت ويهي كرس ليهي si walba mid baan ku weydiinayaa marka ma hooyadii baa la eegaa oo marka la dooranayo lagu doortaa hooyada firkeedii si hooyada ahayd waxa lagu doortaa awrka kale ee dhalay aabihii awrka lagu doortaa awrka dhalay lagu doortaa ha hooyadina dee fiicanta in waa lagu doortaa laakiin awrka badi u fiican imin sanaad gel la joogtay ana 20 wax imin saad jirtaa ana maxaan jira 40 40 ma jirtaa ha wani waxa lagu moodaa ku ilaatan jiray ha ya ana gelma iska dhamaan ya magaalo ma garanay magaalo wali ma tagniya mar ma ogay laakiin ma bade marka magaalo tagtay wixii ku cajabiyay ku yaabadnaa iimaanka ka go'ay muxuu ana waxa taa oo si arkamo laakiin baadiyo ma naska qaanimo ma rabo magaalada intaad geel la joogtay wixii ama ka kugu riday aad ka yaabtay ma hasta ما wax kale oo ka iibin geel ma qaybad ku leedahay masarka waxa ta shaqaalaha geel gacanta ku hayay qayb baan ku leeyahay ma guursatay haye reer baa ku digay reer ma meesha bangal buu ku digan yahay gaar sax geed marka balkan iyo bangal way kala fog yihiin oo xuduudka Tansaaniya ku dhownahay see u aadaa mar baan aaday markii nafaas aqaa markii 3 bilood 4 bilood ajo aan aaday baa lagu fasaxaa wararka dibadda ka soo dago kale geel ula jooga kadina wuu degayaa reerkii wuu aadayaa muddo sax saawe ama reeruhu jooga wadanka de ragga qorayaan oonay gabdhaha qaar baa soo degay cidda soo degtay adigu kala fog oo kala uu weeyay reerkii iyo moogtay meesha uu joogo kala fogtay geel muddo raaca kadina markuu muddo joogo wuxuu aadaa moogtay reerkii wuu aadaa geel baa qaataa ma lacag baa qaataa hadaan ku sii weydiiyo moogtay arrimo xogaa aan yar qurux badnay lacag qaata imsa ku shaqaysaa marka 13 waa $100 oo bishii qaata anaha geel waa iska dhantaa hawada aan iska joogtaa dadku dhaanta la waa dad badan oo Soomaaliyeed baa ku daawanaya oo meel kala duwan joogo oo geel aan wax badan ka aqoon oo moogtay aad u xiiseynaya maxaa dhihi lahayd professional dhaaf geel waa in nin walba uu dhaqado waa fiican tahay waa xoolo quman oo adag oo inta rag u dhaqdo ay kamid tahay marka waana daawacaaniisa si walba marka alla dhaqaaleysto geelan ee la marta lagu marsi fiican الله استعمال عنيسة مركان هلين قاعد سو قاعد كرن هدي سو قاعد كرن هدي ونب أمو نك أسا نك دبي دبي وكاس هدي مرت وسو قاعد كرن ومسؤول تبعني كره أنا تبع ذوي صح ماشان إمسك قلب هدي أتكو شوكتان ماشان رقم ما يجلش شو كان مويا إمسك قلب كله لواتن ويدن لواتن قلب شو لواتن ويجوكت Soomaalidu joogtaa marka geel ma Soomaalidu un baale meesha joogta mise dadka kale ee Soomaalidu un baale meesha joogta waa badan magaaladan hadda soo marteen afarteeda gees kulli geel la wada degan ilaa hadda waxa noo dhawaa geel badan ku jiraan wax loo meelaha loo ku dhaqmo maya loo wax feerin ba markan وكاسو جيل بقى ونرجع وكدالها جيل بالله حق لنا ها واقرت وكا يعني أضل ما سنتهاي ساد نوسو دويس رجعنا نسولو ويمكن كمديها جيل هيا البور ومقالك دوبيا أضل صاحب ما سنتين أنا أقول أضل ما سنت صاحب صاحب ما مقالة دي بنوادي محن كقرتينا مقالة النود ده هي وسلامة يا ولكن جودن الصومالي إلا عدة كلها اللي وسلامة مركز سياسي النود بان سكور جايين إبرة وناكسن مركز فرد من النود نكسر نقطة رجع جيل كوس يماد حريص يماد أنا هم يلقي بيا مسوي سكدمان هو سكدمان وسكدمان أنا هاي مقالة كي يميدوا عن دنيا مدينة مدام سمدون أنا مدام وسكدمان وحكي إيبنا ملهن عدي قبنا مقالة كتير اللي شوكتي أنت اللي شوكتي ما حصلها مدبات لواتنا اللي جوا مدبات هون اللي جوا مركز هاد بسيء هو باسوح مركز ما إسكن قناين صح وكاساس أعين هذا ما صنع هذا موضوع